ويلا شنبغل شن يسطر ما شاء الله عيري واكيد انت سأبو ذا ما قرب شنو سبغل أبو والو كبر ضاهنا مات أقسم الأرض والله إلا مات دhowaanahan waxaa guud ahaanba Soomaalida ay si aad uga walwalayeen xaaladda caafimaad ee fanaanka caanka ah Leere kaasi oo bilihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay gudaha dalka Kenya balse maanta war farxad leh oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad ayaa soo baxday ducadii culimada iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa Allah u aqbalay inta aan guda gelin waxa ka soo kordhay xaaladda caafimaad ee Leere marka hore muuqaalkan laag saar oo si faafi si codkeena uu meel dheer u gaaro haddii aad YouTube-ka naga daawanayso subscribe saar channel-keena oo like garay haddii aad page-ka naga daawanaysana follow the page-keena si aysan kuu dhaafin sheekooyinka xiisaha leh ee aan bartan soo gelino mahadsanid hobalka caanka ah ee Leere ayaa maalmihii la soo dhaafay noqday hadal haynta ugu weyn ee baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka waxaana soo baxay warar iskhilaafsan oo ka hadlayay xaaladiisa caafimaad oo maalmahan ahayd mid aan aad wanaagsanayn dhawaan ay ahayd markii sawir uu soo geliyay Leere bartiisa Facebook uu gilgilay guud ahaan baraha bulshada maadaama uu ciwaan kaga soo dhigay qoraal qoys u muuqday oo dadka oo dhan ay ka argagaxeen walwal iyo cabsi badan oo ka abuuray taageerayaashiisa iyo guud ahaan Soomaalida balse inkastoo uu si daran u xanuunsanayo haddana tallaabo weyn ayaa loo qaaday baxnaanadiisa caafimaad wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay Leere xaaladiisa caafimaad ayaa ah in mar kale dib loo arkay Leere oo qoslaya sidoo kalena kaftamaya Allah u siyaadiyay balse warka farxadda la ayaa ah in Leere uu imaan doono caasimadda Soomaaliya Muqdisho kulan uu la qaadan doono qayb ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood isagoo aan dalka iman garab istaag u sameeyay si gaar ah madaxda ugu sarreysa dalka iyo hay'adaha caafimaadka iyo kulamo gaar ah la qaadan doonaa kadibna waxaa la rajeynayaa in loo qaado dalka dibadiisa si uu u helo baxnaan caafimaad saaxiibayaal Iila Cabdullaahi Nuune waxa uu ku wajahayaa magaalada Muqdisho kadibna waxa uu marti u noqon doonaa hadii Allah awood leh uu qadaro madaxda dalka oo uu ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax kala kamarna anaga muxuu ahaa hadda ayaga meeshii jooga aniga Iila afkiisa ku hadlaayo dokumentiyadii caafimaadka wadan alaala wadankii markaas deeq caafimaad aan ka heli karno haddii deeq caafimaad aan heli weynana muxuu ahaa dokumentiyadii inay noo dhameyso dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaan ka codsanaynaa Iila markii hore waxa uu walaac ka muujinay waxay ahayd caruurta runtiina hadda caruurta alxamdulillah walaala loo helay oo muxuu ahaa sheeg ogaanayo walwal hadda caruurtii kuma hayso wuxuu diyaar u yahay in muxuu ahaa sheeg Muqdisho quraan saarna loogu sameeyo insha Allah kadibna la qaado oo loo qaado wadan dibadeed hadba dawladda federaalka dokumentiga ay noo fududeyn karto ayaanu jecelnahay inaan galaangal sameeyno madaxda dawladana waxaan muxuu ahaa jeclaan lahayn in xilkooda iyo mas'uuliyadooda ay qaataan shacabka Soomaaliyeedna doorka looga baahan yahay waa inay u soo duceeyaan walaalkeen ducada wax weyn ay kartaa saaxiibayaal Iila Cabdullaahi Nuune caawa waa safar waxa uu ku wajahan yahay magaalada Muqdisho halkaas oo yani sheeg hawlo badan iyo processyo muxuu ahaa qaabkii wadan loogu qaadi lahaa xilligan Leere inuu helo deeq caafimaad oo dibadda ah ma ahan wax dhameystiran laakiin tallaabadii ugu horeysay ayaa loo qaaday dhanka baxnaanadiisa iyo garab istaagiisa iyadoo madaxda dalkana laga sugayo inay caawiyaan howlkan Soomaaliyeed Leere oo ah shakhsi lagu yaqaan qosol madadaalo iyo inuu la kaftamo dadka ayaa maalmahan duruufta iyo xanuunkiisa ay ka dhigtay mid aan baraha bulshada si weyn uga soo muuqan laakiin marka uu kaamirada dib u soo hor fariistay wuxuu u mahad celiyay bulshada Soomaaliyeed oo si weyn u garab istaagay markii uu muujiyay dhibaatada xanuunkiisa sidoo kalena culimada Soomaaliyeed iyo qayb ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayuu u jeediyay mahad celin ballaaran waxaan u mahad celinaa dawladda Soomaaliya u mahad celinaa oo istaagtay iyo waxaan kan waliba aad iyo aad aan leeyahay oo ku jeclahay maama aan leeyahay maama Khadija Diiri aan leeyahay hooyo aad ku jeclahay maama Soomaaliyeed tahay marka hooyo si gooni u salaama waxa waaye gacanteena isu gaartay ma sha Allah waxa waaye mara gabsaarku ii toortay ma garad ma sha Allah hal hooyo ilaaha kula jiro waxa waaye anigii ilmaha waxaan noqotay ما شاء الله
waxaan kaloo inkaan halkaan aan ugu mahadcelinayaa waadeen qeyr la siiyey sheekh umul aan leeyahay sheekh xasan shibili kulli waxaan leeyahay ajir xasan aan laadin siiyo marka waxaan mahadcelina waxay tahay culamada dhan walbada mahadcelinaa weliba waxaan u mahadcelinaa sheekh umul oo ii soo duceeyey sujuudii ku duceeyey aan leeyahay qeyr la siiyo marka koronto waxa waaye Soomaali Maxamed iyo kala harin xafad amina waxa waaye ana qabiil min qarnaa maadaama weli uu xanuunsanayo ila yare isla mar ahaantaan uusan bogsan tani waa tallaabadii ugu horeysay ee baxnaanada caafimaadkiisa loo qaaday adigu waxaad awoodi kartaa inaad sii faafiso muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro isla mar ahaantaana Soomaalida oo dhan ay ugu duceeyaan wiilkan dhalinyarada ah ee aabaha Soomaaliyeed si uu caafimaadkiisa dib ugu helo sidoo kalena waad ka qayb qaadan kartaa garab istaagga Ila Cabdullaahi Nuune oo ila yare loo yaqaano fariinta ugu weyn ee aan diri karno waa inaan codkeena meel dheer gaarsiino si keenna xanuunsan uu helo baxnaano caafimaad oo dhammaanteen duca iyo garab istaag toos ah aan ugu muujin karno ugu dambeynna waxaan rajaynaynaa in madaxda dowladda ugu horeeyo madaxweynaha dalka iyo hogaamiyaasha hay'adaha caafimaadka ay fududeyn doonaan waxyaabaha aasaasiga ah ee fududeyn kara inuu helo caafimaad dalka dibaddiisa ah walaalkeena ilaa dhamaadkadii aad nala joogtay fadlan muuqaalkan like saar oo sii share gareey haddii aad barteena YouTube-ka inaga daawanayso subscribe saar oo nagu soo biir adigoo kadibna riixaya gambaleelka digniinta haddii aad page-ka inaga daawanaysana page-ka like saar oo follow gareey waad ku mahadsan tahay sida aad inoola jaan qaadayso